wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaay waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay Allah leedahay arayday boortawooja ku daayeeso day war boortawoojana waxa uu ahaa gaalkacyo lagama yaqaanay dhageyso xalay goor dambeertay xidiguu siraateen kay hooye xeel dheer xaamile ku dihatay xuduntiisii oo qoyanin xumaale lagu waco xaasha ugu wanqalayo waa xaalad duuyiye xilliga ku badayo xurmo ku horeysan xeera kuugu sii jirina salaam now danaanish danaan raaju xasan kaafi qoyste indeetna wasaare danaanaju akam jirtee naguba daxan kaman laqaa subuq warbaxo ku hadlay ninku amhaarina gobsati gabrihana gali widay oramana waa ku jirtay imaaraadka carabta ka shaqeeyo u fududeeyay war kuwaas caaraha ilmaha loo siiyaan war qoystu aadis ababa ka yimid baan salaamay xaggeedna la aadin afkeed ku salaantay xasan wax daaficuna uma eekay meesha waa ku soo baktiyay kalamaan waxaa soo salaamayay dhallinyarada degan xaafadda boolimakeyn ee magaalada addis ababa mayna erenred salaamano mana salaamnahana aayen war dhallinyarada salaanta waanu ka guddoonnay mid lamidana halkan baan u marinay war golaha wasiirada dumarku ka buuxo abi axmed lagu salaan haddaad noqoto war madaxweyne farmaajo soomaalida soo suudaan markuu la hadlaayey waa kii yidhi madaxda maamul goboleedyadu shaqadoodii mid ahanay faraha kula jiraan kamana yeelayno cabdiraxmaan cabdishakuuraa soo hadlay madaxweynihii mucaaradka wuxuu yidhi dagaal waaye warka madaxweynuhu marka anugu waa yaabanahaye is-aadayna la joogo goorma laysku duule war madaxweynaha mucaaradka waxaan su'aalayaa haddii madaxweynaha warkiisu dagaal yahay yuu warkiisu nabad yahay ama warkiisu dikreetaya war madaxweynaha mucaaradka soo xasan sheekh ma ahayn war xasan waa madaxweynihii hore waa naga musa cabdiweli gaas waa madaxweynaha maamul goboleedyadoo dhan buda wala ka baahi warku suge aw shariif madaxweynayaal reer geedland madaxweynasho war madaxweynaha Soomaaliland waa Muuse Bixi Cabdi war u dhanow Muuse itiraaf ma hela masaqayaamu ku sugaya kuwiina Elizabeth sugaya war madaxweynayaasha galmudug waa xaafiya baast maantana wasiir cusub baa cadaada lagu magacaabay inkastoo magacayga ka dhax waayay war wadi meelikinka binaaw looma dhamo ma erto dhagankiina ha war ma ka yaraniyo 40 kiiba ku jira war gudoomiyaha gobolka banaadir wuxuu yiri mucaaradka nabadiidka boonbooninaya toos waa inay shabaab u raacaan taa gudoomiyuhu dadku yiri ma ka yeeleen xildhibaan fiqi oo Twitter soo jawaabay wuxuu yiri gudoomiyihiisow wadooyinka mugdiga noqday balliyada biyaha muqdisho roobku reebeen iyo qashinka meel kasta yaala ayaa shaqadooda u taala mucaaradkana madaxweynaha ayaa soo Suudaan kala hadlay ee gulwadaynta iska yareeyo war yariisuba Twitter ku soo jawaabay wuxuuna yiri waa nasiib darro inay mucaaradka ay amniga siyaasadeeyaan wuxuuna intaas raaciyay fadlan xildhibaan fiqi ha loo sheego inaanay shacabku ka yeeli doonin qaswade argagixisada u kaalmeeya war ma haysiin fiqi iyo yariisow Twitterka isku dagaaleen haddana Twitterka ku heshiiyeen war Twitterka hadii lagu heshiiyo maamul goboleedyada iyo dawladuna may ku wada hadlaan war naga aamu isku xilka ka xunay war waxaan maqli jiray geed hoostiisa lagu wada hadlaaye hadda ma Twitter lagu heshiiyay noqotay maandooyo gurigan Twitterka la yiraahdo halkuu ku yaala Donald Trump warada war ma haysaane gudoomiyihii hore baarlamaanka Jawaari maanta asagoo baarlamaanka dhex fadhiya la arkay war adii Jawaari kursiga intigaari gudoomiyihii lagu kalsoonay intaan bahi fokaday war waxaan maqli jiray meel libax soo galay looba joogayso Jawaari markaan bartay baarlamaan buu war fadhiyay ma wax cusubba Sharif Xasan hadii koonfur galbeed looga adkaado baarlamaanka ka fiiriya Abuuroow Mansuur hadii doorashada dhanka adkaada nabad sugidda ka fiiriye lafta gareen hadii doorashada koonfur galbeed looga adkaado wasiirka gaashaandhigga ka fiiriya Xuseen Ismaan hadii koonfur galbeed looga adkaado safiirnimo ka fiiri walaalahay adigu ma jawaasiisaatiin waxaad noo qadimaysaan waa maxay war wasiirka qorsheynta Jubbaland aadan wuxuu yiri madaxda Soomaalidu ayagoo wax kale isku hayay dastuurka ku raftaan ee waxa kale la isku hayaa laga heshiiyo yaan dastuurka lagu meeraysan Soomaalidu dastuur la'aan bay heshiin jirtay waradana Soomaaliland dastuurkeeda shacabka ansixiyay wararkaygii qaramada midoobay socdaalkii maanta wuxuu marayaa garoob oo dika yiri madaxweynayaasha Geedland Cabdiweligaas buu la kulmay maanta
wuxuuna yidhaahday xaaladda hala qaboojiyo war orgagan qaramada madoobe oo la sheegaayo socod badana warnimaya orgagaas waxaa loo yaabaa markuu cadaadiya dhuusamareeb u kaleexdo mid ka dego waraada war ma haysaan de waxbaan idiin sheegaya mad garan waddankayga dee jibuuti wuxuu noqday waddanka caalamkao dhan ugu maalgashiga wanaagsan maaha balsidaaga ismaaciil cumar geel waa la wala ammaanay akh war naga tag ismaaciil cumar geel la ammaanay uma dhimana soomaaliyana khilaaf iyo isqabqabsi uma dhimaneen war wiilkii mahad abiib oo norway soomaalinimadiisa muranka geliyeen soomaaliya aqoonsatay baasaboorkiisina waa la siiyey waana soomaali dhalay raadiyo kulmeyna waa mahadsan yahuud war mahad abiib isagoo soomaali ah ayuu muqdisho ka soo degayaa warnimayow norway waa ta jawaari iyo kayrada soomaalinimo u aqoonsatay wiilka yarkaa maxay u dhaheen soomaali ma tiid war jawaari i ra'iisul wasaaraha soomaalinimo aqoonsadeen muraad yoo ka dhaharagaayeen laakiin maskiinku muraad ma ka lahayna war ka yar muu Soomaaliland dalba noqdo dhiyo baraaraha adduunka iyo fidnadu way isbarbariyaan mid halkuu balleeyaa ka kala buuxinaya basiinkiyo dabkii beladu waa sii baktinaya allow bakti intaa diiday oo dooni maa iriya derbi hoose dabaq aan lahayn amase tiir duugan dusha sare ninkii dadanayow dan iyo yeelkaae carab dalab leh layguma degiyo sheeka duurxulehe isha daban qofkaa nugu dayow kuu dareen qabaye dusduskiyo khiyaanadan dahsoon waan ka sii dega warnimiyow booliisi ayaantun walan bogili lahay war kale u suban asheeneen dhallinyaradii ina foodo ka jaraan asheeneen war shabaab baa marlaan madaxa jari jiray kuwan yaa u diray war allah u naxariista cabdiqaadir ooma wuxuu yidhi waagii maxkamaduhu qabsadeen xamar nin walbaaba wuxuu necbaabu ku duulay inta karbaash qaatay kii shaleema necbaa shaleemadiibuu weeraray kii dumar aan xijaabnin necbaa dumarkiibuu karbaash ku weeraray kii banooniga ciyaalka dheela necbaa iyagiiu xirxiray kii ilmaha fooda daysta necbaa maqasuu u qaatay kii surweelka dheer necbaa surweelkiibuu jaray marka arrinta booliska hadda la sheegaya ma balwad baa ninba wuxuu jecel yahay miya warnimayo wax kastoo la ammaanaa way ka soo dardaraan booliskaanna waa la ammaanay war maaha waa xuskii 2006 horta goormaa xeer dhaqan galaa markii la amro ama la shaaciyo boowe daroonkanaga garowe waa la qabsaday warba Soomaaliland baa soo gaadhay maye galmudug baaday boowe intii qabsataa waa eedi doontaa ma sii joogi doonto intii la qabsaaya intay jireen shirki galaafka mashquulsanaayeen may ciidan gadoodsan oo furinta tukaraq ka yimid garoonka qabsaday waana la qancinayaa maxaad la qaylinaysaa war tahriibiyaal Soomaaliya baa lagu dilay xuduudda Yemen iyo Sacuudi nimanyo war Sacuudigu muxuu dadka u leynayaa waayahan war yaa shiicada Yemen baa lay war tahriibku ma siin diraysan wariya wallahi imaaraadka ayaga baasaboorada ku qabsan ganacsatada Soomaaliyeed Itoobiyaanka dhaafa